السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها قيمة بدنا كحيران كنال كان يوتيوب جراتسو سكسون نقود وناكسن يو أركت حيصله وحرجينا ندعفات قبطان أنا يقول استوكل الحمد لله مقال كنا مانتي وحكوسي أبسني هاي سوفتوير فيديو إديتنا لقوم مقعابو ايس موفي ومتكالكرات كاركيسان وسوفتوير سنة رجينا ايو نقضوا على سوفتوير ادو فضود قفيفة استعمال كيسن هاي مد عجيبة marka software-kan software-da aan sharaxnay wax weyn kama duwan isticmaalka guud sidaan hore u sheegi jireen waxa weeyaan hadaad mid barato lagu editing garay muuqaalada kuwa kale adibka baran doontana waxay noqon doonaan kuwa fudud marka software-kan ayaan qiimeyn doonaa hadii ilaahay idmo inaan taan galno gudihiisa transitionadiisa effectiisa iyo waxyaabahaas oo dhan baa fiirin doonaa marka maadaama in badan aan ku dhex jiray qaybaha lagu halmaalo dhinaca editing-ka ama wixii la halmaalo ama software-daas maadaama software-kan la igu cazumay waxaan rajeynayaa inaad waxa weeyaan review fiican ka bixin doontaan insha Allah waxaan booqan doonaa marka website-ka laga heli karo software-kan si aan u soo degsano kadib waan ku shuban doonaa waan isticmaali doonaa aakhirka waxa weeyaan hadduu ilaahay idmadii baahi timaado in software-kan aad loogu baahan yahay inaan muuqaalo kale ka sameeyo waxa weeyaan asagana si lamid ah waan sharxi doonaa marka aan booqano website-kooda si aan u soo degsano software-ka waxaan eegi doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo halkan waxaynu ku jirnaa sidaan arkayno website-ka laga soo degsado software-ka lagu magacaabo iSmovie website-kan insha Allah description-ka ayaa ku dhigi doonaa linkigiisa waxaan u eegi doonaa marka laba qeybood qayb wax weeyaan oo isticmaalno si trial ah iyo dabcan inaan iibsano waxaan arki doonaa marka qiimaha lagu iibsan karo software-ka inaan wada eegno kadibna ka ayaa degsan doonaa dabcan wuxuu leeyahay Windows iyo macOS labadaba sidaan arkayso wax weeyaan dad u baahan tahay hal sano oo isticmaal ah waxaad bixin doontaa qiimo ku dhow $50 oo kale oo wax weeyaan 49.95 cent ayaad bixin doontaa hadduu ilaahay idmo marka waa dabcan waa kii sanadlaha ah bilaha uu leeyahay soo wax weey qiimo $15 dabcan $16 oo kale aan iraahdee si lamida wuxuu leeyahay oo lifetime aad weliga iska dhacaynin oo wax weeyaan qiimaha aad bixin karayso marka haddii qiimahan qiimo ka hooseeyo discount aan helaan insha Allah description-ka ayaan igu soo dhigi doonaa ama qaybta comment-iga dabcan waa qiimaha caadiga oo suuqa joogo soo rajeynayna insha Allah waxaan ku dhufanayaa marka free trial waxaan rajeynayaa inaan dabcan u isticmaalo qaab free ahaan inaan u isticmaalo kadibna waxa weeyaan qaabka aan ugu shuban doono insha Allah marka aad buu iska yara fudud yahay 95.2 MB weeyaan marka hay noo soo dago kadibna waxaan sameeynaa inaan install gareeyo insha Allah waka markay noo dhameeyay kadib waxaan sameyn doonaa halka qaybta yarka iliga yarka ku dhufo kadib waxa leedahay show in folder sida markuu ugu soo baxo marka waxaad sameynaysaa dabcan aad buu fudud yahay double click dheh kadib waxa leedahay marka yes ayaad ku dhufan doontaa wuxuu bilaabi doonaa marka installing-ki dhammaan waxyaabahan oo dhan iska akhri qoraalada kadib waxa leedahay accepted qaybta kore dooro kadib waxa leedahay next oo waxa uu dhigan doona dabcan faylasha waa program file waa okay waxaad leedahay next wuxuu ku sheegi doonaa marka inaan desktop ku abuuro dabcan icon sidaan oo kala ma doonaysaa ka soo kicisa kadib halka waa guud laftirkeeda dooro kadib waxaad leedahay next wax kale ama process kale uma dhimana waxaad leedahay marka install isagoo dhan ku shubisidiisa oo dhan waxa moodaa aad inay u fududahay markaad ku shubanayso waa ka asaga dhanba uu dhameyn doonaa kadib marka waxaan soo kicinaynaa oo aan awoodnaa inaan soo kicino desktop-ka ayuu noo dhigi doonaa qaab dabcan icon sidaas oo kala marka inoo dhameey inta yar waa ka kadib waxa leenahay finish waa intaas oo dhan asaga ayaa soo kici doonaba kana iska soo xir kana iska xir waxa tagi doontaa marka qaybtan oo uu ku saari doonaa tan waxa weeyaan iga yara xir su'aale icon-ka ku sheegayo iga yara xir su'aale icon-ka ku sheegayo midkaan oo kale wuxuu soo dhigi doonaa marka inta badan desktop-ka ayuu ku soo dhigi doonaa haddii aan meeshan dooranayo kala doorato waa inta marka guud ahaan waxa weeyaan isticmaalkiisa dhanba ayaan u guda gali doonaa horta waxa weeyaan software walba oo video editing markaad isticmaashay mid kuwa kale aad bay kugu fududaan doonaan software waxaad ka fiirin doontaa halkee baan muuqaalada laga soo geliyaa halka lagu jarjaro iyo preview-ga meesha ay ka soo muuqdaan muuqaaladu saddexdaas ayaa muhiim ah marka software-kan waxyaabaha iyo tools-kan u baahannahay transition effect wixii la halmaalo dhan iyo text-ga dhinacan ayuu ku leeyahay sida kuwii hore dhinacan sare ayay ku lahaayeen marka waxaan sameynaynaa hadduu ilaahay idmo inaan muuqaal soo gelino jarjarno aan fiirino transitionaysa u shaqeeyaan waxaan leenahay marka import kadib waxaan dul tegi doonaa muuqaal kamid ah dabcan muuqaaladan oo kale kan oo kale ii door
kadib waxaa leeyahay open sidan waxa igu soo galay hal muuqaal si la mid ah double click dheh haddana muuqaal kale iyo sidaa ku soo geliyay qaybta marka timeline kan oo kale si aan ugu jarjaro muuqaalada laba qayb ayaan sameyn karaa inaan drag and drop sameeyo oo aan soo jiido oo halkan dhigto kow mid waka kadib waxaan dhigi doonaa keep sabe oo halkan igu ilaali cabirka muuqaalka kan ka xigana waxaan sameyn karaa waxa weeyaan inaan blaska taabto kale wuxuu soo dhigi doonaa asaguna muuqaalka halka ii soo dhigi doonaa labada wax weeye option baad sameyn karaysaa inaad blaska taabato iyo inaad waxa weeyaan adigu aad drag and drop sameeyso soo jiido waa ka marka muuqaalkayga halkan ayuu ka soo muuqan doonaa qaybtiisa waa tan preview-ga halkan waxa weeyaan waa timeline-kii meelihiisa waxa weeyaan meedihiisana waa kan aan muuqaalada aan dhigan lahayn waxaan ku hormari doonaa marka hadduu ilaahay idmo qaybteen waxa weeyaan media library-geena waa kan waxa inoogu xigi doonaa marka qaybtan waxaa ku jira iyadana si lamid ah stickeradan iyo waxyaabaha yaryarka ay kusoo baxay sida elementigii oo kale hal mid oo kamid ah soo qaado ama muuqaal kusoo daro dabcan sidaan oo kale noqon doonaa muuqaalka markaan daawanayo oo kale ayuu kasoo dhex muuqan doonaa waa kan marka halkan yaal xogaa markaan yara sikiyo meelahaas kale aan geeyo haddaan muuqaalkii daaro waa ka marka waxaan yarka kasoo baxayo kale waaye qaybahaas elementska oo kale halkaan ay yaalaan wax ku diyaarsan kuwa qaar dad u baahan tahay laftirkeeda click si dabcan double click marka dhacdo kale wuxuu bilaabi doonaa download ahaan inuu ku dejiyo kadibna soo jiido waxaad dhigan doontaa halkaan oo kale dhigo muuqaalkaaga daar marka waa ka dabcan waxa weeye loofka wixii la midka oo kale halkaan waa stickers waxyaabo yar ku diyaarsan oo muuqaalada ku dhex dari karaysa weeyaan waxa kale oo la jira background waxa weeyaan marka midabada u baahan tahay dad rabto yelowga dad rabto waxa weeyaan madowga wixii la halmaalo kale halkan ayaad ka soo qaadan doontaa iyagana midabada waa halkaas kale ku diyaarsan yihiin waxa kale uu leeyahay qayb audio codadka ah mid waxa lagu magacaabo music background dabcan waa codadka caadiga vlogyada wixii la halmaalo marka duubayso kale u baahan tahay waa cod caadi ah laftirkiisa soo qaad halka hoose ii soo dhig qaybtan track audio aan hoose ayuu qaadan doonaa midkan hoose haddii aan yara daaro dabcan waa qaabkan oo kale waxa weeyaan sidaas oo kale u qeylina marka waxa weeyaan cod weyn oo qurux badan oo kale ma laha haddaad u baahan tahay marka codadkan oo kale sound effect ayuu halkan ku leeyahay asna sound effectigiisa waa kuwaana dabcan software-kan waan tijaabinaynaa qaabka iyo siduu yahay maahana tutorial caadi oo 10 kama wadno marka si u shaqeeyaan arkaynaa insha Allah qaybtan waxa weeyaan sound effects oo kale waxa ku jira codad waxa weeyaan yar oo music background oo kale ayaan iyagana waa ku darsan kartaa oo wixii la halmaalo kale mid soo qaado qaybtaas oo kale qaybtan waxa weeyaan waa kuwa marka halkaan markaan iraado haddaan daaro waxa weeyaan cod noocaas oo kale ayuu noqon doonaa oo waxa weeyaan sound effects ah marka waa qaybta codadka iyo wixii la halmaala midna u tijaabin kartaa free trial ahaan u soo deji kadibna baraawe waxa weeyaan wax mushkilad weyn ma laha waxaan ku daraynaa marka qayb kale wuxuu leeyahay textiga iyo wax weeyaan tambaleedyada caadiga qoraalada lowerteedka iyo wixii la halmaalo kale kii aan degsaneyn oo calaamada ay saaran tahay dabcan kuma degsana waa double click baa leedahay waa soo degsanaysaa asagana kuwa diyaarsadee baa u bedelan karaa midkaan oo kale ii soo yara qaad halkaan oo kale ii dhig waxa weeyaan waa qaybkaan oo kale ku soo baxaya sidaad arkayso marka waa sidaad arkayso waa qoraal iyo wax weeyaan subtitle-kiisa halkaana ka bedelsa click markaa ku siiso halkaan buu kuu soo saari doonaa magaca waxa weeyaan aad u baahan tahay bedel kadibna halkaan magaca ku qor kadib halkaan waxaa ku qoraysaa title-ka hoose asaguna waa waxa u bedelanaysid kadibna sidaas ayuu kugu soo bixi doonaa asaguna waxaan kaloo sameyn doonaa aan soconne qayb kale waxaa jirta filter iyo waxa lagu magacaaba waxa weeyaan qaybaha midabada iyo wixii hal xabo ka mid ah soo yara qaado halkaas oo kale aan ku daro muuqaalkii bilowgiisa oo kale qaabkaan noqonaya awal sidaas ahaa si ayaa ka dhigna marka filter waxyaabahaas kale leeyahay qofkii waxa weeyaan oo anfacayso uu isticmaali karaa waxa kale oo ku jirta qayb lagu magacaabo transitionadu waxa weeyaan waa software walba editing ah halka laga fiiriyo transitionadiisa weeye marka waxaan sameynaa laba muuqaal ba halkaan iska gala dhexdooda ayaan waxaan ku daraynaa transition halka xabad noo soo qaad dhex bartankaas ayaan ku daraysaa labada muuqaal kadib baa soo galaya waxa lagu magacaabaa transition waa badsan kartaa dhowr xabay leeyihiin way kala duwan yihiin waa wax weeyaan software-da waliba aan bixiyay mid kamid ah ay aad isku yara egyihiin daad si fiiriso waxa weeyaan oo aan ay casharadii hore ka bixiyay marka waxa weeyaan asaga dhan ba halka uu yahay software wax laga fiiriyo transitionadiisa halkaan bayna ku yaalaan qaybta waxa weeye animation iyo halkaan motion uu ku leeyahay wixii la halmaalo tusaale halkaas oo kale aan geyn doonaa kala go aan kala jaro markaad kala jarayso maqaska ayaad isticmaalaysaa ama halkaan waa ka jari karaysaa taa waxaan soo qaadi doonaa marka midkaan kamid ah kan igu dar markan ku siidaa kadibna dib iyo yara laabo labadooda daar kadibna qaabkaan buu noqon doonaa waa ka xogaa animationkaas yarkaa ku jira marka muhiimadu waxa weeyaan aynu tagnay qaybta ugu hooseysa halkaan dabcan split video ina isticmaalo laba muuqaal asbar dhigo kala daan rab ayaan dooran karaa kadib halkaan igu soo dar
kaliya marka waxaan soo bixi doonaa markuu soo baxo kadib muuqaal soo jiid lambar 1 ku siidaa muuqaal kale soo jiid lambar 1 ku siidaa muuqaal kale soo jiid lambar 2 ku siidaa dabcan waa kan halkaas kale igu siidaa waa ka laba muuqaal oo kale halkan dhigay okay hadhow marka halkan soo gaaro laba muuqaal waxay noqon doonaa laba muuqaal isba bar socda waxaana ku jira split video camal ba ku jira marka software-ka waad tijaabin kartaa wax aad fiiri qaabka uu shaqeeyo hadii loo baahdo oo software wax weeyaan laga wada helo noqdo asaga ma sharxi doona tutorial-kiisa guud laakiin waxaan rajeynayaa in dadkii editing hore u soo bartay ay wax weeyaan baahi badan u qabin laakiin ay fiirin doonaan qaabka uu shaqeeyo iyo siduu yahay ولكن software-ada ugu fiican oo editing ugu fiican horaan u baranay insha Allah kan sidee baan export u sameeynaa marka muuqaaladeena iyo wixii marka diyaarsano halkan waxa kan exportiisa halkan ku yaala kaliya kadib waxaad dooranaysaa marka MP4 waxba device-yaas kale waxba ku farin kadibna waxa u bixinaysaa marka magacii aad rabto tusaale oraan waxa ugu bixiyay tijaabo iSmovie u bixi kadibna meesha aad dhiganaysaa muuqaalkaaga aad desktop-ka dhiganaysaa wixii la halmaala ama change baad ku sameynaysaa dib waxa leedahay export waxaan sameynaysaa dabcan continue maadaama aad trial wixii la halmaal isticmaalaysid continue marka dhaado uu tirinaya marka waxa yaad sugaysaa kadib markuu dhameeyo waa fiirinayna marka muuqaalkeena ku soo baxo marka bal aninkuna ila qiimeeya description-ka inii dhigi doona bal fiiriyo sidoo shaqeeyo hadii uu software cajiib noqdo oo wax weeyaan si arjina software weyn ma gaari doona laakiin wuxuu gaarayaa noocyada yar yarka ah hoose oo basic wax weeyaan ayuu noo noqon doona insha Allah kana inoo dhameeyo kadib marka markuu noo dhameeyo kan iska yara xir kana ka laabo waa ka marka muuqaalkeen magaca ku qoran tijaabo iSmovie waa ka marka muuqaalkeeni aan tijaabina aan sameeynay adiguna marka bal tijaabi insha Allah haduu Ilaahay idmo waa hagaag marka waxaan rajeynayaa inaad aragtay software-kan fahantayna qaabka uu shaqeeyo waxaan rajeynayaa in badankiin idin fududaan doono sida loo isticmaalo qofkii aad u daneynayo wax weeyaan wuxuu ka degsan karaa website-kaas qofkii gadashadiisa raban wax weeyaan inuu isticmaalo wax weeyaan qiimaha arkaynay ayuu ka iibsan karaa marka wixii faahfaahin oo kale waxaan ku soo qori doonaa qaybta description-ka oo quseeya software-kaas marka waxaan rajeynayaa in aad wixii comment ah aad inagu soo qori doontaan hadduu ilaahaymo qaybta comment-ga halkaas aan soo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh